السلام عليكم وبركاته وليال maanta waxaan joogaa dekada Garcad shirkadda wadaagsan yaa xagan ay igu soo dhaweeyay insha Allah waxaan rabaa inaan iiduubo dekada Garcad intii leegtahay iyo shaqada ka socoto iyo insha Allah wixii rajeynayaan intii leekaato markii projectka la dhameystiro 2 sano gudaheeda 2024 insha Allah haduu laana gaarsiiyo marka xagan igala socda dekadana aan iiduubi doonaa la jooga Farxaan oo ka tirsan shirkadda wadaagsan Farxaan insha Allah introduction dadka si oo la wadaag shaqada waana qabanaysa waayahay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh meel kasto aad joogtaan magacaygu waa Farxaan Faarax Cabdi maanta waxaan la joogaa Axmed oo dalka Holland ka yimid dabcan waxaan rabay ganacsigan ama goobtan dekada Garcad inuu soo booqdo una arko umada Soomaaliyeed waxa ay qabsadeen Axmed soo dhaw sidoo kale waxaan rabaa umada inaan u sheego maanta waxaan Axmedna tusi doonaa insha Allah idinkan idin wadaagaynaa shaqada ka socota dhismaha dekada Garcad goobta ugu horeysa ee hadda aynu tagi doono insha Allah goobaha shaqada dhan baan tusi doonaa ugu dambeynna dekada ayaynu idin geyn doonaa goobta ugu horeysa aynu tagayno waxa weeye waa goobta hadda shaqada ay ka bilaabatay noogu dhow waana goobta shamiitada lagu qaso kabacdi shamiitadaas waxa lagu sameeyaa shubka biyaha dhexdooda la geliyo markaan ka tagno waxaan tagi doonaa goobta dhagax laga jabiyo waxaan tagi doonaa crusherka oo isna shiidaya jaygi waxaan tagi doonaa insha Allah markaas dekadii iyo goobta shaqadu ay ka socoto marka sidaa darteed nala socda saa hore ugu sheegnay waxaan ku suganahay goobta shaqada ay ka socotay goobtan waa goobta loogu talagalay shamiitada arkaysaanba hadda shamiitadii ayaa soconaysa طبعا باوركي ayaa hoos kaga jira waxa uu sameeynaa inuu shamiitada qaado sidaa darteed goobtan waa goobta bulkeetiga waxa la yiraahdo shoobka waa weyn ee dekada la geliyo wax kasta waxa lagu sameeyaa qaybta shimidka halkan weeye marka qaybaha kale ayaynu tagi doonaa waa aniga Axmed qaybtii hore Farxaan fahansiye oo noo sheegay inay qaybta shubka xagana hadda waxaan joognaa qaybtii dhagaxa lagu shiido oo crusherka marka afar nooc dhagax yaa laga dhigaa marka insha Allah si socdo sida arkiisiin labaran waa laba nooc oo kala difrina oo mid ah xagana waxaan socnaa meesha dhagaxa lagu shiido insha Allah la wadaagi doonaa marka la socdo arkiisiin dhagaxa sidaas laga dhigay oo la yaryaraysiiyay kan kalena sidaas loo shiday arkiisiin isku midkii ma dhagaxa lagu shiiday oo crusherka hadana goobaha kala siyaadi goobtii dhagaxa laga soo qaadaya animadne dhagaxaha waaweyn waxa la geeyaa dekada sida bad lagu buuxiyo kuwan yaryarna waa kuwa la shiido meeshaan ka imaadne ayaa la geeyaa la sii jajabiyaa la sii yareeyaa crusherka marka kuwana waaweyn waan sidaan ii sheegay waxa dekada la geeyaa sida bad lagu buuxiyo
qaybtii dhismaha ka socota xaggana afkii hore laga soo galaya baddiina waa taas marka sidaa u arkaysiin meesha meel aad u ballaaran oo weyn oo qurux badan kalarka biyaha xitaa aad iyo aad ka helay insha Allah rajaynaa inaan galabta malaha dambe mar kale ku soo dabaasho laakiin hadda focuska waxaan saaraynaa culayska waxaan saaraynaa dekadda xagaasaan ii duubi doonaa oo shaqarna xagaasaan ka sii wadi doonaa waa aniga Axmed mar kale hadda waxaan la joogaa dekedii Garcad qaybtii la sii dhamaystiray hadda waxaan taaganahay qaybta la dhaho Jambi A qaybtaasna laga hor soo jeedin waxaa la dhahaa Jambi B sida u arkaysiin xaggana doonya tugboat yaan la joogtaa doomihii kalena xaggaasi joogaan kalarka baddana quruxdeeda maasha Allah waxaan rabaa in la wadaago markaa la socda dekedana waan tusinaa waxaan ka sii socdo aad iyo aad ku faraxsan inaan arko Soomaali xitaa meesha ka shaqeynaya dhismaha dekada lafteed taasna waxay ku cadeynaysaa shaqo abuurka meesha ka jiro oo dhalinyaro Soomaali fursad ay helayaan inay shaqo meesha ka shaqeystaan marka Cabdirashiid taalan la wadaag informationka waxyaabaha qabatid iyo shaqo abuurka maxaa fursad ka hesheen hadda dhalinyaro Soomaali gobolka mudug ama Garcad magaalada Garcad marka hore ilaahay maad kale كونا حانو مانتا نلو كلمي iyo Axmed oo maanta soo booqday aad iyo aad meeshaan waa loo jeedaa caalamka waa laga daawanayaa waa meel dekada inay noqoto Soomaaliya ugu weyn anuu waxaan ka shaqeeyaa waxaan shaqaalaha dekada Garcad ka shaqeeyaa wiishkaas sikino wareerta tahay Soomaalida ka hor fursadaha ay ka haysato Soomaalida fursadaha ay ka haysato aad iyo aad عجائب وشغوين بدنا كهلا مع دعاء أنا وكشقنا هذا ويران قول يكون تنقف ولا يرى صناعية كشقيس ومدور بشغل كلا جد سك وكشقيس مركا حرفات ما لقيها رأيه أصلاً وها ما حد عاي قلت ولا كشقيس بريكة مع الجد كتك الله ويرو سيستم كيو يقعناه واحد كبدل ووركها لين عند كد كسر شقيب مركز وراه إنجنير هاو إنجنير دوك قرني يا أبا وركها إنجنير كشقيني ورني سيستم قال قبل سيستم قال له بدل وركها markale la jooga dekada Garcad markale waxaan rabaa inaan u hadnaqo shirkadda wadaagsan gaar ahaan Saciid Axmed iyo Farxaan oo igu soo dhaweeyay inaan chance-kan ay siinaan dekadana duubo marka reer Garcad u tashareen ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu leeyahay dinkana tashara meesha caalamka iyo maalicnigaas laga baxo dekadihiina iyo airportkiina iyo wadankiina dinka dhista vlogana gaar ahaan wixii ku saabsan tahay gobolka xitaa ka imaaday awdal oo aan dekad iyo airport aan lahayn dekadiina dinkana xitaa dhisaan ugu horan lahaa umad tashatee noqra marka mar kalena ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan doonayaa ku dhaw niyadiina iyo maskaxdiina waxa galisiin ayaa gaari kartiin
sidaasna la socdo insha Allah booqashadeeni dekada Garcad iyo hadda soo gabagaabine qaybtii ugu muhiimsaneedna oo soo duubnay waxaan rajaynaynaa ku raaxaysateen inta kalena haddana hadda wax kale aan aragnona waan la sii wadaagi doonaa insha Allah marka xaggaasna la socda aad iyo aadna u mahadsantahay